السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام دمان أصحابتك وحلا جلالك فضلا تاكو عصبتا جلالكينا سبسكرايب صار ما أنت وحن إذن وذا إن قصة يرو قابا لكن وناك هو إن تسيسا نين قراءة هيا سنة كي لبضا كون إيسدحي توان وحاو قري بوك لما قعبحي my mother my love أيا بوك كحد لايي هو يذا waxaa la weydiiyey sababta ku kaliftay waxa uu ku jawaabay maalin maalmaha ka mid ah markii aan jiray 12 ayaa habeen waxaa xanuunsatay hooyaday waxaana ay lahayd uur 7 bilood ah markii ay xanuunka dareentay ayaa waxaa i qabatay hurdo waana seexday xilli ay saacada ku beegnayd 8 habeenimo ayaan soo baxay oo waxaa i qabatay kaadi markii aan soo marayay jikada ayaan waxaan dareemay shanqar markii aan soo galay jikada ayaan arkay arin aan la ooyay hooyaday oo xalay oo dhan xanuunsanayd ayaa hadda waxay dabka saaraysaa shaah intaan soo orday ayaan iri hooyo maxaad u samaynaysaa shaaha waaba xanuunsan tahay aniga ayaa ku jooga oo karin lahaa waxay igu tiri hadal aan waligay ilaabi doonin hooyo xanuun walba oo aan dareemo waxaa ka weyn xanuun walba oo uu dareemayo ilmahaygu markuu gaajoodo hooyadu waa lama helaan haddii ay ku nooshahay ka duceyso una ducee oo ha ilaawin fadlan walaal haddaad daawatay muuqaalkan soo qor aamiin oo ha hilmaamin aamiinta walaal adigoo mahadsan sheedah la wadaag walaalaha kale si ay u dhageystaan qisadan maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tago xaski soo maray iyo maganila mar kastaba please subscribe